oran jiray Shannon ayaa wuxuu galay safar isagoo gabar doonayo in maskax badan oo hadalkiisa aad loogu bogo haayo xikmad badan dadku in badan waxay oran isweydiin jireen walaa gabadhu Shannon guursada waa gabadh yaab leh tuulooyinka oo dhan baa la baahiyay gabadh Shannon la caqli ah oo uu guursado xagee laga helaayo wali tula garaada la waayo dadka su'aalo weydiiyo oo marba waxa la yiraahdaa uma qalanta ninka maalintii dambe odaygu safar la galay markan soo duuduubo wadadii dheereeday sii hayeen ayaa labadooduba awrar bay saareen odayguna awr buu saaray yahay ninka kale ratib buu saaray wuxuu yiri dabadeed Shannon maadi sii qaadim soo ku sii qaada odaygu wuxuu yiri maxaan ka sii qaaday adna ratigaaga haysataa ana kayge yo yar markay socdeen ba haddana waxay arkeen bakti ama meyd markaa la sido oo la rabay in la soo aaso dabeed wuxuu yiri talo meydkaasi ma nool yahay mise uu dhintay Shannon baa oranaya odaygu wuxuu yiri malaha deesin nin hagaagsan ma tiide oo meyd soodiga arkay inuu dhintay maxaa dulaada inuu dhintay mise uu nool haddana waxay soo mareen beer si qurux badan u baxday oo markaas uu midhahaasi miyay dadkii lahaa talow cuneen ma iyaga la mise malaha suu warsadigan arkay inay midhuhu reerka u baxeen oo ninkii jikeer buu ka fahmay gurigiisii markuu ku degay ay ninkii isku yaani hadalkuba ka xumaaday ayuu ku yiraahdaa maadaama tuuladeedii soo gaadhay odayga la horgaaray tuuladiisii oo belele degmaanta oo martay noqon inan uu xaajigu dhalay oo dabaqa la yiraahdo guriga joogta warkii buu siiyay wuxuu yiraahdaa safar maanta soo galo nin waalan baa ila socdo oo sidaas uu yiri gabadhii waxay tiraahdaa bowkaadi ninkuma waale cajaa'ib oo fariide halkan ad leedahay halkan uu ku yiri maadi qaadim soo ku qaada wuxuu u jeedaa maadi sheekeen soo ku sheekay lian alhadith fi safar kan haml bayt sheekayta la isku sheekay marka la socdo waxay la mid tahay sidii la isqaaday halkuu ku yiri meydkani ma nool yahay soo dhintay wuxuu u jeedaa talow taran ku soo abtirsada ma ka tagay mise soo gobol oo adduunyada ka dhaadhacay geedahan uu kuleeyay mareerahoodii baa liya beerahan mise malaha way ka wareegteen wuxuu u jeedaa talow ma lacag bay siisteen iyo dahab iyo daraahim oo markaas ay nicamka ka tanaasuleen asliga dabiiciga yaani natural ka mise iyaga wali leh oo intifaacsanaya odaygii uu soo cararayo Shannon buu ku yiri jawaabihii baan ku hayaaniyo saad tilkaasad u jeeday kaasna waa ka Shannon intii istaagay buu wallahi inaanu aqligaagu keenin cid ku sheegtay sheeg odaygii wuxuu jiijiiday markii dambe uu iska qirtay wuxuu dhinantayda dabaqa ayaan warkaa ka haya calaya biha buu awrkan watayga fariisiyo gabadha igu darwaan guursanayay gabadhii buu guursaday sidii uu ku kaxaystay tuuladiisii buu la tagay dadkii tuulada deganaayay oo dhan baa su'aalo weydiiyay gabadhii bay aad ugu bogeen guri wanaagsan oo lagu raystaa meeshii ka soo baxay iyo dad ishelay dadkii tuuladu waxay yiraahdeen waafaqa Shannon dabaqata alla ilaahay uu la helay bay ninka Shannon gabadha dabaqa la yiraahdo maahmaah carbeed ayay iska noqotay wax kasto